barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد galab wanaagsan qof waliba magacayga waa Kevin waxaan ahay waardiye maanta halkan ayaan imid maxaa yeelay waxaan qabaa 6 shakiyadaasi oo haddii aan jawaab sax ah u helo aan diyaar u noqonayo inaan soo galo diinta Islaamka. I'm ready to convert and accept Islam. haddii aan bilaabo su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa sidee baan u ogaanayaa islaamku inuu yahay wadada saxda ah ee cibaadada. su'aashaasi waxaan ku darayaa su'aashayda labaad waxayna tahay sidee baan ku ogaanayaa fariinta aan raaci doono inay ka timid xagga Allah. hagaag su'aashayda saddexaad waxay tahay horaan mar aan ku dhageystay Dr. Zakir Naik waxaad dhahday oo aad sheegtay inaysan jirin waddo kuu suurtagelinaysa jannada galideeda inaysan jirin waddo kuu suurtagelinaysa jannada inaad gasho adiga oo aan rumaynin wixii lala soo diray Nabi Muuse calayhi salaam. casrigan hadda aan joogno iyo dhibaatooyinka badan ee la saaxiibka ah ee warbaahintu kow ka tahay iyo dhammaan waxyaabaha aan ku wajahayno nolosheena sidee bay noogu suurtagelaysaa inaan tacliintii Nabi Muuse ku dhaganaano. ilaahay samana saamixi doonaa haddii aan marar badan aan xasino kadibna aan u soo noqono. walaalku wuxuu doonayaa inuu laba qayb u dhigo 6 su'aal inuu na weydiiyo ayuu doonayaa. saddexda ugu horeysa na weydiiyana waxay tahay sideen ku ogaan karaa in islaamku yahay cibaadada saxda ah oo ay suurtagal tahay in lagu fahmo qaabka aan islaamku ugu cibaadaysano taasi ma sax baa ama wuxuu ula jeedaa islaamku ma diinta dhabta ah baa. maxaad ula jeedaa ma waxaad rabtaa inaad ogaato in wadada cibaadada islaamku ay sax tahay mise islaamku ma diinta dhabta ah ee cibaadada baa. su'aasha ugu horeysa ee walaalka waxay tahay sideen ku ogaanaynaa islaamku inuu yahay diinta saxda ah oo ay waajib nagu tahay inaan raacno. qaybta labaad ee su'aasha tii hore u eg tahay waa sidee baan ku ogaanaynaa in islaamku yahay diin dhaba. midda saddexaadna wuxuu sheegay inaan ku sheegay mid ka mid ah khudbadahayga in Ciise calayhi salaam yiri haddii aad doonaysaan gelitaanka jannada waxaa idinku waajiba inaad raacdaan dhammaan tacaaliimta iyo qawaaniinta lagu sheegay cahdigii hore. sidee baan u raacaynaa tacaaliimta cahdigii hore xilligan hadda la joogo. waxaan isku dayi doonaa inaan kulmiyo labadii su'aal ee hore oo ahaa sidee baan ku ogaanaynaa islaamku inuu yahay diinta saxda ah ee cibaadada sidoo kale sidee baan ku ogaanaynaa in islaamku yahay diin dhab ah. ereyga islaam waxaa laga keenay kelimada salaam taasoo la macnaa nabad. sidoo kale waxaa laga soo dhambalay ereyga silm midaasoo la macnaa doonistaada inaad alla u dhiibto. islaam macnihiisu waa nabad lagu kasbado u dhiibista doonistaada alle subxaanahu wa tacaala. kitaab kasta oo la sheego inuu yahay fariin xagga alle ka timid si loo caddeeyo diin waliba oo ka timid xagga alle subxaanahu wa tacaala waxyigan kitaabkan diintan waxaa waajiba in lagu caddeeyo imtixaanka xilligan la joogo hortiisa. xilligii hore waa xilligii mucjisooyinka qur-aanka sharafta badanna waa mucjisadii mucjisooyinka. mar dambe waxaa yimid xilligii suugaanta iyo gabayada. culimmadii carabta ee muslimiinta ahaa iyo kuwan muslimiinta ahaynba way u sinaayeen waxay qireen in qur-aanku yahay kitaabka ugu wanaagsan lagu dhaqmo lagana helo dhulka korkiisa. balse maanta haddii uu kitaab muqadasa yimaado oo uu yiraahdo dhulku waa u fidsan yahay hadalkaasi qof maanta jooga miyaa rumaysanaya? run ahaantii maya. maxaa yeelay maanta waa casriga sayniska iyo tiknoolajiyadda. haddii aan arrintaasi ku imtixaano sayniska iyo tiknoolajiyadda dhammaan kitaabada muqadaska ah ee aan maanta hayno ee diimaha kala duwan ee caalamka dhammaantood imtixaanka way ku fashilmi doonaan haddii qur-aanka laga reebo. waxaan jeediyey muxaadaro ciwaankeedu ahaa qur-aanka iyo sayniska cusub ma iswaafaqayaan mise isma waafaqayaan. hadda waqti badan uma haysano inaan muxaadaradaas oo idil soo jeedino balse waxaan doonayaa inaan xuso in caalimkii dhanka fiisigiska ee helay abaalmarinta Nobel Prize-ka Albert Einstein waxa uu yiri
saynisku waa daciif diin la'aan, diintuna saynis la'aan waa indhoolanimo. haddaba iidda aan kuu sheegay in qur-aanka sharafta badan uusan ahayn kitaab saynis SCIENCE, balse waa buuggii calaamadaha SIGNS. wax ka badan 6,000 oo aayadood oo ku jira qur-aanka sharafta badan. 6daasi kun waxaa ku dhex jira 1,000 aayadood oo ka sheekeynaysa sayniska. haddaad isbarbardhig ku samayso xaqiiqooyinka sayniska ee aan maanta ognahay, waxaan ogaanaynaa in waxyaabaha cusub ee saynisku maanta ogaaday inay noqotaa laga yaaba 50 sano oo tagtay, ama 100 ama 200 ama 400 oo sano. qur-aanku arrintaas wuxuu sheegay muddo laga joogo 1,400 oo sano oo tagtay. qur-aanku wuxuu ka sheekeynayaa abuuridda koonka. suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 30 waa arrinta saynisku maanta ka sheegay qaraxii weynaa. waxaa la ogaaday muddo 50 sano laga joogo. qur-aankana waxaa lagu sheegay 1,400 sano ka hor. waxaan ogaanay dhulku inuu qaabku badeed yahay markii uu socod ku maray Francis Drake gaararka dhulka sanadkii 1577 miilaadiyada. qur-aanku wuxuu ku leeyahay suuratu naazicaad suuradda 79 aayadda 30 dhulku waxay u samaysan tahay qaab ukumeed. wal arda bacda dalika daxaaha. waxaa la tilmaamayaa ukunta gorayada. innaguna waxaan ognahay in ukunta gorayadu ay tahay qaabka ukumaha kale oo kale. xilligii hore waxaan u malayn jirnay in dayaxu uu leeyahay iftiin u qaas ah. waxaana ogaana mar dambe ha ahaato 100 sano oo tagtay ama 200 ama 300 in iftiinka dayaxu yahay mid isaga ku dhaca ee maahan mid u qaas ah. arrintan waxaa lagu sheegay qur-aanka muddo laga joogo 1,400 suuratul furqaan suuradda 21 aayadda 61. haddaba ayay u suurtagelaysaa inuu xaqiiqooyinkani ku sheego qur-aanka midaasi oo annaguna dib dambe aan ka ogaanay. markii aan dhiganayay iskuulka waxaan bartay in qorraxdu ay sugan tahay oo aysan marnaba dhaqdhaqaaqaynin. qur-aanka waxaa lagu sheegay suuratul anbiya suuradda 21 aayadda 33 qorraxdu iyadoo haddana dhaqdhaqaaqaysa haddana sidoo kale booskeeda ku wareegaysa. maanta saynisku wuxuu ogaaday in qorraxdu iyadoo haddana dhaqdhaqaaqaysa ay sidaa oo kale booskeedana ku wareegayso. arrintaasna waxaa qur-aanka lagu sheegay muddo laga joogo 1,400 sano ka hor. sidoo kale qur-aanku wuxuu ka sheekeynayaa cilmiga geedaha iyo noolaha, cilmiga biyaha, cilmiga urkujirta, cilmiga dhaxalka. dhammaan waxyaabahaasi oo aan dib ka ogaanay, ha ahaato 100 sano tagtay ama 200 ama 300 ama 500 oo sano. haddii aan waxyaabahani oo idil sayniska u bandhigno maanta, dhammaan kutubta muqadaska ah, kitaabka keliya ee imtixaanka ka gudbaya waa qur-aanka sharafta badan. saynisku maanta weli aad uma hormarin. saynisku maanta weli ma gaarin heer uu wax kasta ogaado. sidaa darteed dadka waxaan u sheegayaa, haddii aad taxliilisaan qur-aanka maanta, saynisku waxa uu sugay, waxaan ogaanaynaa in 80% xaqiiqooyinka qur-aanku ka sheegay saynisku wuxuu sugay inay tahay mid saxa 100%. weli ku dhawaad 20% ayaa qarsoon. lamana sugan ma sax baa mise waa qalad, balse caqligaygu wuxuu leeyahay marka la sugay 80% inay tahay mid saxa 100%, kale hartayna sax ayay noqon doontaa insha Allahu tacaala. sidaa darteed waa rumayn caqliyeysan. ma jirto hal aayadoo keliya qur-aanka ku jirta oo saynisku sheegay inay tahay mid baadila ama qalada. waa jiraan waxyaabo ka soo qaadiya oo fikir dadeed ah oo qur-aanku ogolaanaynin, balse lama helayo hal aayadoo keliya qur-aanka ku jirta midaasi oo saynisku sugay inay tahay mid qalada. haddaba anagoo arrintaasi ku dhisayna, haddii imtixaanka loo bandhigo kitaab kasta oo muqadas, waxaad ogaan doontaa in diinta iyo kitaabka keliya imtixaanka ka gudbi doona inay yihiin islaamka iyo qur-aanka. muxaadarada waxaan ku bilaabay aayad qur-aan oo soo qaatay ku jirta suuratul Israa suuradda 17 aayadda 81 taasoo dhahaysa waqul jaa alxaq wa zahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa. dheh xaqii baa yimid, baatilkina waa suulay, baatilkuna wuxuu ahaaday mid la suuliyo. haddaba haddii aad imtixaanka u bandhigto diinta keliya guulaysanaysa waa diinta keliya ee aan la bedelin. sidaa darteed William Moore wuxuu leeyahay muddo laga jooga 200 oo sano isagoo xitaa islaamka ka soo horjeeday, wuxuu leeyahay kitaabka muqadaska ah ee keliya ee aan wax isbedel ku dhicin ahna weli mid nadiif ah sidii lagu soo dejiyay waa qur-aanka sharafta badan. sidaa darteed anagoo wax ku dhisayna xaqiiqooyinka diinta keliya oo inoo suurtagal tahay inaan ku fakarno oo aan fahmo oo aan rumayno runnimadeeda iyo saxnimadeeda waa qur-aanka. markaan u nimaano su-aashaada saddexaad oo ah inaan ku sheegay hadalkayga in Ciise calayhi salaam yiri waxaa waajiba inaad raacdaan tacaaliimta lagu sheegay cahdigii hore. aniga waxaan soo qaatay faqro ka mid ah Bible Gospel of Matthew chapter-ka 5 faqrada 17 ilaa 20. marka Ciise calayhi salaam uu leeyahay waayo waxaan idinku leeyahay xaqiiqnimadiinu haddaanay ka badnaan tan culummada iyo fariisiinta geliba maysaan boqortooyadii jannada.
sidaa darteed haddii aad doonayso inaad nin masiixiya oo wanaagsan xilliga ciise calayhi salaam, haddii aad doonayso gelitaanka jannada, waxaa kugu waajibahayd inaad raacdo dhammaan tacaalimtii lagu sheegay cahdigii hore. kuma suurtagelayso inaad ku khilaafto xitaa wax yar. haddaad arrintaas sameedo, ahlu jannaha ayaad ka mid noqonaysaa. sidaa darteed annagoo ku dhisayna faqradaasi ka mid a Gospel of Matthew chapterka 5 faqrada 17 ilaa 20, waxaa waajiba inaad raacdo dhammaan tacaalimtii iyo qaanuunadii cahdigii hore. su-aashaadana waxay ahayd mid aad u wanaagsan, haddana aad u caqliyeysan. sidee bay suurtagal u tahay raacitaanka tacaalimta cahdigii hore xilligan maanta la joogo? arrintaas waa arrin adag, waan kugu waafaqsanahay arrintaas. isla sababkaasi ayuu ciise calayhi salaam wuxuu yidhi Gospel of John chapterka 16 faqrada 12 ilaa 14, wax badan oo kalaan leeyahay inaan idin sheego, laakiin iminka qaadi kari maysa. laakiin markuu kan ruuxa runta ah u yimaado, wuxuu idinku wadi doonaa runta, waayo isagu iskama hadli doono, wuxuu ku hadli doonaa wuxuuna idin sheegi doonaa waxa imaanaya. wuu i ammaani doonaa, waayo waxayguu qaadi doonaa, wuuna idin sheegi doonaa. nabiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu ka sheekeynayaa imaashaha nabiga ugu dambeeyay nabiyada, waa nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. markuu soo baxo wuxuu idinku wadi doonaa wadada dhabta ah. taa macnaheedu waxa weeye in ciise calayhi salaam ogaa in xilli dambe in la raaco waxyaabaha lagu sheegay Bible-ka aysan suurtagelaynin, laga yaabay qarniyo kadib. isla sababkaasi waxa uu yidhi, laakiin markuu kan ruuxa runta ah yimaado, wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan. wuxuu ka sheekeynayaa nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. sidaa darteed xilligaa waxaa suurtagal ah in la raaco tacaalimta lagu sheegay iyo qawaaniinta cahdigii hore iyo weliba kii cusbaa. balse ciise calayhi salaam wuxuu yidhi, mustaqbalka marka nabi Maxamed soo baxo sallallahu calayhi wasallam, waxaa idinku waajiba inaad raacdaan. sidaa darteed haddii aad doonayso inaad noqoto masiixi wanaagsan maanta, waa inaad rumaysaa Allah, kadibna aad rumaysaa nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam nabinimadiisa. waxaan rajaynayaa inaan su'aalahaaga ka jawaabo walaalkay. su-aasha xigta waxay ka socotaa qolo Kirishtaan ah, waa qoys Kirishtaan ah. sidee bay iigu suurtagelaysaa inaan la midoobo ama aan la xiriiro qoyskayga haddii aan galo diinta Islaamka? maxaa yeelay bulshadaasi waxaa ka dhex jiraya laba caqiido oo kala duwan. in a same compound. walaalku wuxuuna weydiiyey su'aalaha, haddii aan diinta Islaamka soo galo, sidee baan ula xiriirayaa qoyskayga? markaasi waxaa jiraya laba caqiido kala duwan. walaalkay, adiga waad ogtahay inay jiraan waxa lagu magacaabo cahdigii hore iyo cahdiga cusub. ahaanshadaada qof Kirishtaan waxaa suurtagal ku ah inaad raacdo cahdigii hore iyadoo jiro cahdiga cusub. haddaba haddii uu jiro cahdi hore iyo cahdi cusub, waxaa jira mid ka dambeeyey oo ah cahdigii ugu dambeeyey. qur-aanka sharafta badan waa cahdigii ugu dambeeyey oo ka yimid xagga Alle subxaanahu wa tacaala. sidoo kale qur-aanka sharafta badan waxba lagama nusqaamin rusushii lagu sheegay dhammaan Bible-ka. islaamka waxaa nagu waajiba dhammaan inaan rumayno ambiyadii hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray. waxaana jira waxaan ka yareen 25 nebi oo lagu sheegay qur-aanka. dhammaantood waxaa lagu sheegay Bible-ka marka laga reebo nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo kuwa yar. sidaa darteed waxaa nagu waajiba inaan ixtiraamno dhammaan rususha Ilaahay. wuxuuna sheegay nabigeena xabiibka Maxamed sallallahu calayhi wasallam in Alle subxaanahu wa tacaala dhulka u soo diray 124,000 oo rasuul. haddaba haddii aad soo islaamto, korkaaga ma ahan inaad ka tanaasusho rasuul ka mid a rususha lagu sheegay Bible-ka. waa inaad ku tiraahdaa qoyskaaga, aniga waxa aan raacsanahay waa wixii ciise calayhi salaam yidhi 100%. waxyaabaha ay sameynayaan Kirishtaanka kale, iyagu ma raacsana ciise ilaa 80% ama 90% ama 50%. waxaa kugu waajiba inaad u sheegto in lagu sheegay Gospel of John chapterka 16 faqrada 12 ilaa 14 in ciise calayhi salaam leeyahay, wax badan oo kalaan leeyahay inaan idin sheego, laakiin iminka qaadi kari maysa. laakiin markuu kan ruuxa runta ah u yimaado, wuxuu idinku wadi doonaa. sidaa darteed aniga waxaan raacsanahay ciise calayhi salaam wax ka badan Kirishtaanka raacitaankooda. haddaba haddii aad Islaamka soo gasho, waxaad noqon doontaa qof nabi ciise u rumaysan wax ka badan sidii u rumaysan yihiin Kirishtaanka. waxaan rajaynayaa inaan su-aashaada ka jawaabo walaalkay. waa maxay su-aashaada shanaad? dhammaan su'aalahayga way dhammaadeen. waxaad jawaabo u heshay dhammaan su'aalahaaga? haa, waan helay dhammaan jawaabaha. haddaba hadda ma ku qanacsan tahay diinta Islaamka? haa, waan ku qanacsanahay, waxaana diyaar u ahay inaan soo galo diinta Islaamka. ma rumaysan tahay inuu hal ilaah jiro? iga raalli ahaaw. ma rumaysan tahay inuu hal ilaah jiro? waxaan rumaysanahay inuu hal ilaah oo kaliya jiro. ma waxaad rumaysan tahay in ciise calayhi salaam yahay ilaah? waxaan rumaysanahay in ciise calayhi salaam yahay rasuul xagga Alle ka yimid.
ma rumaysantahay in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yahay rasuulkii ugu dambeeyay rususha rumaysanahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu yahay nabigii rususha ugu dambeeyay walaalkay ma waxa jira qof kugu qasbaya soo galitaanka islaamka waxaan diyaar u ahay inaan diinta galo ma waxa jira qof kugu qasbaya soo galitaanka islaamka ma jiro qof qasbaya waa go'aan ay nafsadeedu soo gaartay waa doonistaada iyo qanaacadaada shakhsiyadeed waliba waa go'aan qalbiga la xiriira maxaa yeelay qof in lagu qasbo soo galitaanka islaamka waa arrin mamnuuc ka ah diinteena sida xitaa uu mamnuuc uga yahay badanaa dowladaha caalamka haddaba marka waa xorriyadaada insha Allah xorriyadeyda ayaan ku sameynayaa carabi baan ku dhihi doonaa adiguna ku celi insha Allah ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah. MashaAllah waxaad noqoto muslim waxaan Allah subhanahu wa ta'ala kaaga baryayaa inuu ku hanuuniyo kuguna kaalmeeyo qoyskaaga inuu ku hanuunaan soo galitaanka diinta nabadda waxaan Allah kaaga baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu kugu irsaaqo waxa ugu wanaagsan oo adduunyada dhexdeeda ah iyo aakhiraba saacad kadib ayuu wiilkii soo laabtay si uu u codsado wax kale assalaamu calaykum alxamdulillaah aniga awood ayaan u yeeshay inaan go'aankii aan qaatay ku adkaysto runtiina waxaan dareemay soo dhoweyn qurux badan iyo jacayl la isiiyey aniga waan qadarinayaa waana ku adkaysanayaa go'aankii aan qaatay haddaba adigu doctor Zakir waxaa tahay qofka suuliyey shakiyadii aan qabay waxaan kaa codsanayaa adigoo mahadsan inaad igu magacaawdo magac islaami ah markaad soo gashay islaamka kadib waxaad iga doonaysaa inaan magac ku bixiyo walaalkay waxaad naftaada ugu yeeri kartaa Bilaal ma sha Allah waa mid kamid ah asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam Bilaal ayaa lagu yeeri karaa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala kaaga baryayaa inuu ku hanuuniyo kuguna irsaaqo khayrka dunida iyo kan aakhiraba rabbina jannada kugu irsaaqo insha Allah aad ayaad u mahadsantahay